waa maalin jimco ah taliyayaasha ciidamada iyo madaxduba waa kuwo si adag uga hadlaya qadiyadda Mareykanka waliba masaajidka gudihiisa dadkuna waa kuwo ku dhawaaqaya ha dhinto oo ha baaba'o Mareykanku waa dhacdo aan la rumaysan karin in uu imaamka masaajidku uu ku hubeysan yahay qoriga AK-47 dumarkuna waa kuwo si joogto ah ugu bannaanbaxaya in ciidamadoodu xasuuqaan Yuhuudda gudaha caasimadda Tehran waxaa mufti weyn ka ah Ayatollah Hamidi waana shakhsiga soo ifbixiyay in ay shacabka reer Iiraan ay nacaan dhammaan dalalka reer galbeedka oo uu horkacayo Mareykanku waa dal ay si habsami leh ay uga socdaan dhammaan hawlaha ganacsiga waxaana xarumo waaweyn ku leh qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dunida shakhsi kasta oo ka mid ah shacabka reer Iiraan haddii aad weydiisay sidee ayaad u aragtaa America waa mid ka yaaqsoonaya in uu ku dhawaaqo USA daawade waxaad dareemi kartaa haddii aad mar tagto dalka Iiraan in uu awood leeyahay islaamku dalka Iiraan kama hawlgalaan UN-ta iyo hay'adaha kale ee ammaanku laga soo bilaabo sanadkii 2005 qof kasta oo Iiraani ahina waa mid ku faraxsan qadiyadda dalkiisa waa dal boqolkiiba 99 laga aaminsan yahay madhabta Shiicada wax ka yar boqolkiiba 1 ayaa Sunni ah walow la yeeso xiliyada colaadaha iyadoo oo ay aaminsan yihiin waxba inaysan ku filayn Ayatollah Hamidi waa shakhsi PhD ka qaatay Jaamacadda California 1991 wuxuuna bartay cilmiga political science iyo xalinta khilaafaadka balse nacaybka uu u qabo gaaladu waa mid muddo hore ku dhashay waa dal si walba loo cuna qabatay xataa dekadaha oo aan wali isdhiibin wasiirka difaaca ee dalka Iiraan waxa uu ku warbixinayaa inuu dalkiisu diyaar u yahay dagaal nuclear ah haddii uu Mareykanku uu soo fargashado siyaasadda dalkiisa haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyo xiiso badan